haatana wararkan idinka hayno degmada Shiniile waxgaradka ku dhaqan degmadaasi Shiniile ayaa cabasho ka muujiyay tareenkani cusub ee mara duleedka magaaladaasi Shiniile sidoo inuu waramayo waryaheena Maxamed Cilmi bulshada xoolo dhaqatada ah iyo sidoo kale beeraleyda ee ku dhaqan gobolka City ayaa cabashooyin xoogan ka muujiyay dhibaatooyinka ay kala kulmaan wadada tareenka cusub oo iyadu kala qaybisay bulshada xoolo dhaqatada isla markaasina xoolaha ka leysa maalin kaste halkan hadda aan joogno waa dabadii tareenka cusub ee Shiinaaga annagu ma lihin tareenka Shiinaaga qolada la yaab askari Ethiopia waxba kuma leh haday ku leedahay annagu deegaanka Soomaalida waxba kuma lihinba أيمكن واحد مودي إن الترين إثيوبيا كده حيوان أنا أقول أنا لكن هو الترين كان أنا قناد الترين كني ما لين كستديري وحنا نقدر على بقول نف أو حولا جيل وحنا دوري الله بعتن إن كنت لا أنت كلنا وأري عد عليه عد مع مشي شرع قبتاي مجي ترى يراته الكاس ما أيس إلا يدوان له تتكيا اللي وديجان كسومالي ده وده شيء وديجان كسومالي ده waxa wax looga qabtaa sharciga oo qaban karay ma jirto waxaan u aragnaa anagu oo baa ku diraynaa abiyu iyo dawladda madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ka maamulka dawladda deegaanka Soomaalida hay'adaha nabadgelyada maxkamadaha nabadiidka caalamka hadii lagu darayo oo saxiixan anagu waxaan saxiix lahayn maadartay wadadan tareenka shirkaddan tareenka waxa weeyeen maalin kasta xoolaha u leenayo dabarkay iyo dadkii lahaayna ka jabeen halka wadada aragtaan meel la maray ma jirto imika beeraha basasha ee wax soo saarka meel la maray degta ka gurna halkan isagii baa nagu soo kidiyay waana tuurnaa u jeedaaba basashi wax shaqaale oo deegaanka Soomaalida u dhashay oo hadda halkan mishaar ka qaatay ma jirto uga soo xaasilay dawladda dhowr jeer baan arrinta kala hadalnay markii la sameeyay waan kala hadalnay dhowr jeer baan kala hadalnay wax laga qabtay ma jiro waxa weeye imika dad waxa jira halkan u dhashay afar neef oo geelula abaartii baa u soo hadhay intaas hadda uu weelayahay magaalada joogaa waa nitusaynaa oo ladiya la yiraahdaa maxkamadihii baa ku tuntay isagana annaga lafteena beeraley baan ahayn beeraha basasha imika aragteen ka soo gurayno qaybtii u weyneed buu naga baabaashay waa kan dhabadan aan joogno waa dhabadii Shiinuhu samaystay waagi dhow waxa weeye dhabadan 470 kilomitir iyayna dhex martaa kilomitir ahaan ma ays ilaa dawaale 400 xoogaa kilomitir inta xuquuqda ay ku leedahay wadanadan u dhex maray annagu kuma weliinba qof shaqaali nooguma jiro dad ajaaniba wata waxaan ugu samay rabo ma garanayno gaariga sidii dayrkii Berlin buu noo kala xidhay 50 kilo kolkaas socotid baa meel dixi marto kaabad laga sameeyaa laga hulusha meel kale oo laga baxo gaari mara male meel reer ka guuro male meel geelu ka gudbo male waan kala xidhana aqal ku jira 1 kilomitir iyo 10 kilomitir uga soo wareegtaa sababtoo meel aad u marto male daartii la sii daayay Quraankiisa 7 qof buu dilay aroortii geel eegaysa kortay birahan daldaloola kortay 7 qof uu daartii kaliya kaga jirtay dhowr iyo 7 qof kolku maraya ay ugu dambaysa dadka uu dilay galalka ugu badan galalkii uu sameystay magmale caalamka magmale kan wixii uu dilo magmala la yiri xagga anaga aan ka joogno dadkii wax bartayna waxay naleeyihiin wax maglaani ma jirto dhulka caalamka qof nool oo laba lugood loo maglaan la dilay uuna bila waxba ma on jabhad iyo argagixisa ahayn ma jira leeyahay anagu argagixisa ma nuuna mariyay waxaan ugu samirana ma hayno qof nooga ma shaqeeyo xadiidkani dib xoog loo anaga nagu hayaa dad badan oo ma aragtay magaaladii iyo wuxuu kala xidhay dadkii soo galay magaalada ayuu laba ka kala dhigay halka wadada imika aan ka soo baxayna darkaysay dumar duqo ayaa quriyo kala soo baxa maalin walba dumar baa ku jira ta kale gobolkani amba magaaladeedani dhulka nabadiidku uu ka jiro way ka daran tahay wax naga caburana wax nabadiid oo ka jirina ma jirto
horowna waxa uga nabadiid kama jirin imika nabadiid kama jiro dhulka nabadiidku ka jiraaba naga room kaabadiya dikada loo sameeyay annaga waxna naga caburinayo noo haysta magaran magaalada Shinile xabad dikada isfaalta wax kala male xabad dikada oo isfaalta male eeg kolkaad dhibaatada tareenku nagu hayo waxa kamida sida uu noo kala xidhay sida uu noo kala xidhu taagana lagu joogo iyo kowka waa buur ilaahay sameeyay waa buur bilaadan u sameeyay haddaba si cabashooyinkaas looga jawaabo waxaynu waraysi kala yeelanay gudoomiyaha degmada Shinile mudane Xasan Nuur Ibraahim oo nooga warbixiyay dhibaatooyinka iyo sidoo kale tallaabada u qorsheysan inay wax ka qabtaan cabashooyinkan maalin kasta soo noqonaya martood ma santiin arrinta tareenka dhibaatada ay shacabku sheegeen kulay waa dhibaato jirta dhibaatadaas wato naga horeysay nidaamkii hore waqtigii uu jiray yahay wax la waxeeyay waa arrin naga horeysay laakiin waa arrin dhibaato oo dadkii inay u kala gudbaan qofku xilliga uu maaragtay xaggan joogu dhaka kala gudbayo dhibaatooyin bay ku tahay xoolihii kama gudbi karayaan haddana ka maamul ahaan waan eegnay arrintu inaan kala hadalno cidda ay qusayso gobolkan anagu u tabinay gobolkuna hawsha uu ku jiraa isagana uu tabiyay oo dad baa imika China la xajoonayo arrimaha tareenka la iskaga maaragtay la iskaga gudbayo arrimaha waa lagu jiraa imika waxa ku maqan loo xisaaray oo maamulka gobolka shaqaalaysiintii qudheeda waan ku jirnaa imika waxaan sameynay dhulka maaragtay China ay ka shaqeeyaan oo dhan dhagax iyo waxyaalaha baa laga gurayo dhulka wuxuu u baahan yahay xilliga laga in maaragtay la hagaajo arrimaha qudheeda aad baan uga sheekaysanay ka maamul ahaan gobolkan waan u tabinay arrintaa way ku jirtaa oo waa lagu jiraa shaqaalaynta qudheeda waa lagu jiraa oo ka degmo ahaan waxaan u tabinay gobolkuna hawshiisii uu wadaa oo cid u xil saaray iyo wado guud ahaan tareenka cusub ee isku xidha wadankeena Itoobiya iyo Djibouti oo gobolka City ka mara Dawanla ilaa iyo Maaysa inta u dhaxaysa ayay xoolo dhaqatadu dhibaatooyin xoogan kala kulmaan wuxuuna dhibaatooyin xun ku hayaa isku socodka bulshada iyo sidoo kale xoolaha iyadoo maalin kastana uu ka jiiro xoolaha taas oo ay u doontaan magdhow balse ayna u helin magdhowgii xoolahooga sidii loogu talagalay waxayna ka codsanayaan xukuumadda in qaabka loo dhisay wax laga bedelo maadaama dhibaatooyin fara badan uu ku hayo bulshada